fiirso sawiradan iyo muuqaaladan kala duwan صح waxaad malaysaa laba qof oo kala duwan wiil iyo gabar balse arinku inta uu ku xiisa badan yahay shalay waxay ku sugnayd Soomaaliya waxay kaga sugnayd deegaanada gobolka Mudug waxaana lagu magacaabi jiray Samiira Farxaan waxayna kamid ahayd dhalinyarada caanka ka ah barta TikTok halkaas oo ay ku soo gudbiyaan markaasi muuqaalo madadaalo ah maadaama bartan TikTok ay baraha xiriirka Soomaalidu kamid tahay balse maanta waxa uu ku sugan yahay Talyaaniga waa wiil aad u qurux badan timahana si qurxoon u xirtay laguna magacaabo Samiir Farxaan dhanka kale baraha internetka Soomaalida iyo baraha bulshada ayaa si weyn arinka gabadhan la isku dhaxmaraya innagaaba garan la ma waxaan ugu yeernaa wiil oo Samiir miyaan ugu yeernaa mise Samiiro marka la daawado muuqaalkani like saar bal aan aragno Soomaalida iyo sida dhacdadani ay markaasi uga falcelisay